Runtii wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad adduunka ka joogtaan iyo waqti walba aadna daawanaysaan. Daawadayaal warbixintan waxaan ku soo qaadan doonaa YouTuber-ka weyn ee Liicato oo qabtay xagga iyo Muqdisho. Haddaba daawadayaal intayna nugda galeen fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar sidoo kalena gambaleelka fursi ay ku soo gaadhaan muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo galino waad mahadsan tahay. Haddaba daawadayaal waxa xalay toole la shaaciyay inuu safar ku aaday magaalada Muqdisho YouTuber-kii weynaa ee Liibaan Cali Aadan Liicato. Haddaba Liicato oo kamid ahaa YouTuberada Malaysia kuwada loogu jecel yahay isla markaasina ahaa shakhsi dadka u soo gudbiya muuqaalo qurux badan iyo challenge iyo madadaalo ay ku madadaaloodaan. Haddaba inta badan waxa lagu xantaa wiilkan inuu yahay wiilkii u sabab ahaa inay Malaysia maanta noqoto dalka Soomaaliyeed ee ay joogaan YouTuberada ugu badan ee Soomaalida. Haddaba dalka Malaysia waxa ku nool dhalinyaro aad u fara badan oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaas oo YouTubera. Haddaba sababtaasi inuu ka dambeeyay waxa lagu xantaa wiilkan Liicato. Haddaba Liicato ayaa ugu dambeyn safar ku tagi doona dalkiisa hooyo amaba wadankiisa uu ka soo jeeday oo ku dhashay kuna barbaaray Muqdisho. waana wax aad u qurux badan halkii aad ku soo barbaatay amaba aad ku dhalatay inaad dib ugu laabato oo aad soo eegto xaaladeeda iyo halkay taagan tahay. Haddaba Liibaan Cali Aadan ayaa qabay amaba ay sumehersanaayeen gabadh la yiraahdo Sumaye Aadan. Haddaba kadib markii dib loo fasaxay duulimaadyada iyo diyaaradaha ayaa Liibaan Cali Aadan wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laabto magaaladiisa Muqdisho iyadoo la filayo intuu halkaa joogo inuu halkaasi arooskiisu ka dhaco waxaananu u rajaynaynaa nolol qurux badan iyo guul. Haddaba daawadayaal wixii warar ka soo kordhay halkan ayaan idinkala soo socodsiinaynaa si aanay ku dhaafin. Subscribe noo saar channelka sidoo kalena gambaleelka fursi ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee aan halkan soo galino waanad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka.